ninkan magaciisa saxda ah wax la yiraahdo Cabdikariin waxa uu social media ku soo galaa war degdeg ah waa nin hawiye ah sanadii 2018 ilaa 2019 ka hor waxa uu ahaa nin wanaagsan oo shaqaysta gaarina leh waxa haysata uqobo uu ka galay gabar majeerteen oo sheekaha saaba ka dhaxaysay uu ka qabtay muuqaal aynan asturneyn oo ay qaaban tahay kadibna magaalo kamid ah Jarmalka ayuu ku faafiyay gabadhii hooyadeed baa inkaartay oo ubad Ilaahay kuma siiyo ayay ku tiri ma dhasho Ilaahay ha ka dhigo sidoo kale ninkana waa ay inkaartay gabadhii way kuursatay balse sanadooyin kadib markii ay dhali weeday ninkiina uu ogaaday in gabadha muuqaal anshaxuma laga faafiyay waa uu furay gabadhiin salaad ayay dukatay oo ninkani aad bay u inkaartay waxaan u hiliyay markaasi dawladda Jarmalka waxayna ku dhaheen maxkamadda ma ku saarnaan ninkan ku xumeeyay ee muuqaalka anshaxumada ka duway kadibna ku faafiyay waxa ayna tiri waxba yaanan maxaan ku dhalay saarin balse magaalada yuunan imaanin wajigiisa ma arki karo wax walba yaataba gabadhii oo markaasi muuqaalka duubay sidoo muuqaalka uga faafiyay stress ayay qaaday sababtoo ah waxa ay iska dhaadhicisay in nin walba uu guursado uu sidaasi u furaayo maadaama uu ninkii markaasi guursaday uu ku furay muuqaal ayaa laga faafiyay iyo waxyaabo lamid ah ma dhasho ayaa tahay marka gabadhii waa ay iska waalatay balwado aan dhahay waaweyn ayeen iska baratay ninkan aad u jeedana waa uu asigana iska waashay oo dawladda Jarmalka waxa ay markaasi uga diiwaan gelisan yahay inuu yahay waalida dhaqanto hadalkiisana waxba laga qoro hadii uu magaalada xitay wax walba uu ku sameeyo waalida dhaqanto uu diiwaan gelisan waxba laga qabto ninkan uqbada weyn ee walaashiisa ayaa haysato oo hore markaasi gabar uu markaasi hore haasaabo uga sameynay rago iska jira gabdhaha inta fiidiyoo ka duubtaan horta inta jacayl ku abuurtaan kadib inta fiidiyoo ka duubtaan aad meelaha ku faafinaysan iska ilaaliya gabdhuhu waalidiin ayaa dhalay waalidiintaas naxdin ayay markaasi la waalanayaan sidoo kale gabdhaha waxaan ku iraaday dad badan ay sumcad u yihiin iska ilaaliya in ishooda waa ay kulushahay hadda gabadha inkaarteed ayuu markaasi waalida dhaqanta looga qoray uu miskiinka mustaqbal aan saan ugu dhacday oo maanta gabar walba diirob inuu guursado iga tag waa waalanta ay leedahay sidoo kale gabadhii hore ee markaasi markii hore haasaba kala dhaxisay markaasi sabab u ahayd dhibaatadan ay haysata wiilkan ayadana miskiinta balwado waaweyn iska baratay magaalkeeda iska celinaysa hooyooyinkan waxa la iska ilaaliyo ubadka aad markaasi habaarka aad maxaan ku iraaday aad isla markii yani aad ka habaaraysan iska ilaaliyo habaarko waa uu markaasi hore waxa loo dhahay hooyadu habaarkeeda iyo ducadeedaba waa ay soo baxdaa marka ubadkiinu de ilaahba wixii qoray wax uu ilaahay qorana waxba ka qabasho ma lahan marka waxa idin ilaahay hooyo walba Soomaaliyeed gabadhaada ama wiilkaaga hadii wax walba uu ka sameeyo inkastoo la yiri ducaduna waa qalbiga habaarkuna waa qalbiga haddana xoogaa iska ilaaliya habaarkiinu wuu aqbalmaya hadda habaarka ayaa gabadhii waa aqbalmay oo ma dhashay ay iska noqotay ninkii ugu horeeyay guursatana waa iska aragteen waxaan ku iraaday wuxuu ogaadeen muuqaal laga duubay sidoo kale ubad ay u dhaliweysay maadaama sanado badan qabay marka waxaan leeyahay hooyooyinka sabab ha u noqonina mustaqbal aanta ubadkiinu niyadu galiya in ubadku ay qaldami karaan oo maqaldamo uu Ilaahay uu yahay oo markaasi birito oo habaarkiinu ka soo bixi karo mar walbana de waxaan idin dhihi lahaa idinkuna waalidiintiinu maxaan ku raaka naxsanina wixii qoran de lama celin karo balse waxaan leeyahay wiilkan waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad ku sii walaalkay mana ahayn inaad gabadhu sidaa ku sameeyso balse wax walba waa qoraal adiguna shaydaan ayaa ku waday markaas rag qaar waa la yaabaa sideeban gabar ku aamintay noloshada ku siisay muuqaal uga duubi karta tan kale gabdhuhu naftarkooda maxaan ku iraaday nimanku la iskama aamino wax ku iraaday wax walban la sagama sameeyo iska ilaaliya nimanka waxaan ku rag xun ku jiro ma fahanteen rag iska ilaaliya waana ka xunnahay miskiinka war degdeg la baxay maxaan ku dhahay Jarmalka ku nool waxaan leenahay bal dacwadaha iyo passport baa la helay hebel baa la helay waxaas la isaga jira ma fahanteen waxa ku caafimaad ba ku rajeynina walaalkay